kusoo dhawaada muuqaal kooban oo idinka soo diyaarinay waxqabadka ballaaran ee ay sameeyeen jimciyadda khayriga ah. Waxaa la aasaasay muddo ku siman haatan 2 sano ka hor. Ujeedada loo aasaasay waxa weeyaan sidii dadka masaakiinta ku nool xaafadaha koonayaasha magaalada Hargeysa sidii ay diinta Islaamka uga qabtiri lahaayeen. Intaa waxaa u dheer waliba iyagoo u qaybiya hadba wixii ay awoodaan, haddii ay noqoto raashin, haddii ay noqoto dhar, haddii ay noqoto kabo, haddii ay noqoto timir, hadba wixii ay u helaan ay walaalahooda muslimiinta uga soo ururiyaan. daawasho wanaagsan. waxaan ku faa'iidnay meeshan annagu waxaan dad iska danyara kuwa haysta iyo kuwa aan haysanba meesha waan isku dhex jirnaa. muxuu ahaa dadkii danyarka iyo kii haysta iyo kii aan haysanba waa naloo dhigaa. kalaata maan aqoonin sida dee loo tukado oo kale inaan iska shaqsado mooyaane. iminka faa'iido badan ayaan ka hayaa darasada suuliga oo kale marka la gelayo. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وانت القدوة يا بابا وانت المثل الأعلى. xaafadda Sheekh Cumar waa xaafad cusub oo laga soo raray bartamaha magaalada Hargeysa, gaar ahaan xaafadda shacabka. qiyaas ahaan waxay u jirtaa magaalada Hargeysa 10 kiiloomitir oo rafa. xaafaddan waxaa ku nool dadyo aad u fara badan, kuwaas oo ay noloshoodu aad u hooseyso ama baan oran karno waa sabool. waxay ii sheegeen in iminka ay jiraan goobo khayriya oo lagu baro diinta Islaamka, gaar ahaan Quraanka Kariimka ah. علمني وبتنسى يا بابا اللي قلته وانت القدوة يا بابا وانت المثل الأعلى ما ما شاء الله أرتبها أنا بقى هبينك أرتبها أنا بقى وفي عينين جس عم قربا بالمية وجس كل وضعنا بالعيا وحنا بقى هجادة وحنا بقى دعويك وحنا بقى سير سؤالها صلاة ونقص حلا أكله. ما شاء الله وإيسا صلاة كان إنا فقه قدرة توحيد قدران توحي فهمت الكلام أسي تكردية أسي بالبلابة أيام حيه ذي ما شاء الله وفي عينه تويسا صلاة. لكن بقرط قرقاد يسأل لسس أنت كوسا حيو أيام حيه ذي أنا أقول هالشيء وأنا في عينه ما شاء الله يبغى تقفل حدي سنة كقل دريد وأصح سنة حدي دين تكير لو سنة وفي عنده وتقوى. waxaan deganay xaafadda Sheekh Cumar ayaan deganay kaasoo baahiyo badan u qabno diinta xagga diinta baahiyo badan u qabno oo meesha waxaan ku meel ay tahay kari go'ana oo cidla ah. marka waxaan doonaynaa inaan maxaan ku dhahdaa kii wax lagu dhiganayay madaaristii masaajidii aad baan ugu baahan. السلام عليكم. سلامك بعد
halkan waxaanu nahay arday jeriyo waaweyn isugu jirta inta badan dumar waaweyna oo inta badan hore waxba waa akhri jirin waxna u qori jirin waxna waa aqooni baan nahay inta jimcadaas aan caawisay ablaha soo cadceeda noo soo raacaya jira gelin hore kala duwan way yimaadaan alxamdulillah iyaga si fiican wax noo baray lacagna lagama qaado ilaahay dartiiba nagu caawiyo maantana faa'iidaan joognaa alf iyo batona maana garin markii hore adxiyadka maana garanay si fiican oo sharaf iyo maamuus leh wax noo baray alxamdulillah baa nagu mahadnaqay iyagana ilaahay rixaysiyo jimcada sababa bulshada naga bixisa mar qiimo naga saarsana ilaahay ka rixaysiyo ilaahay xamd jamciyadan isku abaabushay ama isku xilqaantay inay wax baraan dadka sida gaarka ugu baahan waxbarashada ilaahay ajarka miisaanka xasanaadka ugu beeriyo dadaalkooda ay wadaan insha Allah madrasadu way wanaagsan tahay qaybteedan waxa loo yaqaan qaybta naasaab loo xagaas magaalada kaga taala waa qayb talo ku taala si fiican bay waxbarashadu ugu socotaa ardayduna way kala habaysan yihiin oo si fiican bay u shaqeeyaan waxbarasho si fiican bay u jecel yihiin ma sha Allah in wax loo dhigo aad bay u xiiseeyaan ilaahay kariim waxaanu rajaynaynaa inay si fiican halka uga sii wadaan si fiican ayaa dadka waxaan u yeeri doonaa ardayda madrasada naasaab loo oo waxaan u mahadnaqayaa marka ugu horeysa gabdhaha soo abaabulay quraanka sharafta leh ee malcamada noo furay annagoo dad masaakiina oo aad u danyar oo aad u dayacan gabdhahaasaan aad iyo aad u mahadnaqayaa marka quraanka halka ay nooga fureen ayaan boqolkiiba boqol ku mahadnaqayaa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان سيماهم في وجوههم من أثر السجود xaafadda 3 bilood baan degannahay 3 bilood aynu degannahay maalintii lana keenay dabadeed hadii dawladda hay'adda hadii qoladina soo rartay tahay toona cid kama naan arag saayid marka walaalay sheegeen weyn waxbarashada ma laha goob caafimaad ma leh waddan ma laha rug boolis waxaan ku wax kala daayay xabadda dumar ee foosho qabataaba waxaan ku dhig aan dhakhtarku inay meel nooga sokaynin maanta foosho qabataa inay dhakhtarku inay nooga sokaynin xitaa xanaanaaba noogu daran nimka waxaan ahay macallimiinta wax ka dhigta madaaris ku taala xaafadda Xaaji Cumar Digaale qaybteeda labaad runtii waxaan haynaa arday ay tiradoodu gaarayso ilaa 45 arday waxaanu siinaa maadooyinka ay ka mid yihiin Quraanka Kariimka xadiista sida ducooyinka igaada ayaan runtii u dhignaa runtii waxay ku jiraan qol aad u kooban oo kulul kuma filna dadka fadhiya inta fadhida iyo fasalku aad bay runtii u kala badan yihiin maalmahan suuciska leenahay kale runtii waxay nagu noqotaa yaro caqabad bay nagu noqotaa waxa se aan aad ugu mahadcelinaynaa jimciyatul bir wa taawun oo runtii in badan dadaal badan gelisa in ay u faa'iideeyaan meemooyin badan oo runtii aan xaafidaysan meelo kale ama madaaris laga barto quraanka billahi minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim السماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود
التي في قلب نورا وفي اللسان نورا وفي السمع نورا وفي البصر نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا وعن اليمين نورا وعن الشمال نورا ومن أمام نورا ومن خلف نورا واجعل في نفس نورا وعدل لي نورا وعدل لي نورا. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن يلمر أوريسا إلهي بام حلي هلكن سوكين كيني intaasoo xalqiya oo wada masaakiin iyo cayn walbale oo wax meeshaan wax ku barata ilaahay baa mahad ay ugu sugan yihiin ilaahay mahad isagaas kale halkaa isugu keenay ummadda islaamka ah waxaan weydiisanaynaa oon ku codsanaynaa ama maamuliinta ama muslimka kaleba in naloogu tabaruca ama aqal naloo dhiso ama dhul banaanba naloo qabto wax noo dhiso ilaahay haddo noo safro noo sahle waxa weeye intaasoo ummada xaafadu aad iyo aad waxna barashada u baahan annaga iska daanagu tagnayba laakiin inta yaryar soo koraysay soo kacaysa ayaan u baahnay in diinta islaamka lagu barbaariyo haddii alla ka dhigo inta danaysaneen dherigaba karsanin baa ku badan haddii alla iyo annaka isku warwareegna qofka 10 kun soo galaan laba qoys oo kala la karsada baahida iyadu way fara badan tahay waxaanu cunaabaan u baahanay waxaanu xidhanaan u baahanay waxaanu dhoofa ka galaan u baahanay ilaahay bay tiisa tahay waxaanu u baahannahay bacaanu wadno baca ma haysanee guryahu maryahaasanu isku taltalay bay ahaayeen oo imika way dambasoobeen walaal waxaanu idinku mahadnaqaynaa ilaa maalmaha basacodka noo soconayseen waanu idinku mahadnaqayn ilaahay baa noo kin soo diray walaalayaal baahi way fara badan tahay walaal waxba si anugu baarbaari maayo indhihiina walaal idiin macallina ilaaha weyne halqal basharkii 6 sanaanu halkaana loo isaguun baa na akalayay tayar soo guray xaba yar soo guraya kii gacmo iyo kii lugla iyo kii indhala mid walba ilaaha weyn ee waahidka ayuun baa walaal akala habeenna maqadna saacadna maqadna ilaahay baa waxna siira barasqa bixi haddii se walaal maanta walaalaha iyagii baa tihiin oo waxaa noo wadaan diintii baa noo wadaane wixii aan noo qaban kartaan